kulan wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qubanaha qoran ee aanu maanta ku dul istaagi doono gaajanimadii yaraantii madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo reerkoodu sida ay saboolka u ahaayeen iyo maanta sida ay taajiriinta u yihiin oo asagu uu nooga sheekayn doono xilli dawladiisa ardaynimadii iyo dadkii masaakiinta ahay iskuuladii iyo goobihii ay deganayeen ay burburiyeen sidoo kale barnaamijkeena waxaanu ku falanqeyn doonaa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee kooxda argagixisada ah ee al-shabaab mukhtaar roobow haatanna ah wasiir ka tirsan dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka sheekeeyay amni xumada iyo inuusan qofna isku aamin waxa uu sheegay in qoriga iyo booshku ay ugu hoos jiraan xafiiska uu ku shaqeynayo gurigiisa hadii uu aadayna sariirta ay ugu hoos gudoomiyaha gobolka banaadir oo wadooyinka magaalada muqdisho oo qaar ay yihiin kuwa dhiiqa lala mari waayay kuwana ay xiran yihiin isagu dul camirtay niiko bootin iyo cayaar qodobadaas iyo qodobo kale ayaan barnaamijkeena ku falanqeyn doonaa ee ku soo dhawaada saaxiibada u gudbi fadlan muuqaalka shargare aynu ku bilaabano madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ku dhashay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan waxay ahaayeen qoys faqiir ah oo ka kooban 5 qofood kuwaasi oo aan haysan wax la cuno xitaa oo hal sac ay haysteen wada maali jireen qoyskani maantay xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in ay yihiin qoys guuleystay dhamaantood oo kan ugu yar uu yahay PhD holder hantina ay haystaan halka ilmahooduna ay yihiin ayaguna kuwa ku naaloonaya nolosha ugu fiican adduunyada oo wax bartay sababtaasna xasan sheekh maxamuud wuxuu u sababeeyay dawladnimadii waqtigaasi jirtay oo waxbarasho free ah siisay haatan madaxweyne xasan sheekh maxamuud arintaasi asaga maadaama uu yahay madaxweyne dadka shacabka ah Soomaaliyeed ma u qabtaa waa su'aal aan u soo laaban doono laakiin marka hore waxaan rabaa inaad ila daawatay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo waqtigoodii faqiirnimada qoyskooda ay xaaladaha adag ku noolaayeen nooga sheekeynaya aniga iyo qoyskeyga aniga agoonaan ah mar walba sheegaa hooyo Soomaaliyeed ay soo kurisay ciidan waxba haysanaan ahayn sac yar oo irmaana iyo beer yar aan noo tiilay aan ku soo kornay ku noolayn maanta aniga iyo 5 qofood ila dhalatay dhammaan waa jaamiciyiin waana dad guuleystay oo ilmahoodii hadda ay jaamiciyiin iyo si jaamiciyiin iyo dhaqaatiir injineer ah haddii fursadaasi dawlo aanay bixi lahayn yani annaguna maanta muxuu ahaay sida macallinkayga uu sheegay beer yaraan muxuu ahaay sidoo kale aan magaalada Jalalaqsi ku lahaan lahaa haddaba noloshaasi adag ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku soo koray haatan dalka ayuu madaxweyne ka yahay waxaana markasta dhacda dadka ugu nugul Soomaaliya ee ku nool guryo ayagu aysan xitaa haday ka baxaan meel ay kala ay ku noolaadaan ay saheli karin in dawladii Soomaaliland ay u barakiciso oo xitaa iyadoo la jiifo ilma aan waxba garaneyn guryahooda cagaf la dulmarsiyo lagu soo jabiyo dawladda ayaa ka shaqeysa arintaasi kuwa kale iyaga oo ku maqan iskuulkii waxbarashadii ay yimaadeen gurigooda oo burbursan gabi ahaantood markana gudoomiye ku-xigeenkii hore argagixisada al-shabaab haatan wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta oo waraysi bixiya ayaa waxa uu sheegay inuusan noole adduunka joogaba aaminin oo qorigiisa iyo booshkiisu sariirta ugu hoos jiraan oo qof kasta oo u soo gala uu aaminsan yahay in ay tahay qof asaga u socota ama ay noqon karto taasina waxay sabab u tahay dekanada iyo dhibaatada uu ummadda Soomaaliyeed hore ugu geystay sidaas daraadeedna uusan maanta qof aaminayn mukhtaar roobow ayaa noo sharaxaya in qorigiisu hoosta ugu jiro iska aan toos u fariisto waa kaasay aad igu timaadaan baa ficil haddana waa sii maraynaa qorigii booshka haddaan buu wataa oo miiska iyo hoos yaalaan mar kale roobow oo ummadda beer la xawsanaya ayaa waxa uu dadka u sheegayaa in argagixisada isaga ay ka go'an tahay in la dagaalo waa kuwii uu madaxda u ahaa ee uu abuuray ee qaraxa sida loo sameeyo inay xalaal tahay isagu uu soo baray waxa uu sheegay in 3 kamid ah ilmihiisa ay dagaalka galeen oo mid kamid ah wajiga xabad uga dhacday inkasta oo asaga sheegistiisa arintaas ay u horeysay mar kale waa la daawan kartaa 3 wiil oo ilmo mukhtaara 3daas kaliya baa ii qaan gaartayba inay hal maalin dagaalka galeen oo xabadii ridayeen oo galeen runtii mid ka mid ah in runtii meeshaas wajiga xabad looga dhufteen nimanku gudoomiyaha gobolka banaadir Muungaab ayaa magaalada Muqdisho
wadooyinka qaarkood dhiiqa dhex fadhiyaan oo dadku meel ay maraan la yihiin kuwa jaam ay u xiran yihiin kuwa kala dhagaxaan ay saaran yihiin haatan waxa uu bulshada ku dul camiranayaa niiko jees boodbood iyo raaxaysi وقالكان وقدوميها قبل كبنادر لازم هدوك إلى شرح هو اللي تينا بطولك من اللي تصدو لك هادونا هذا يربي إلا ما مدايا إلا دوا عدو لربا مدايا إلا دوا عدو لا جيح مدايا ما فقبع لبس دولكان قدر عيدا لسما laakiin dadka shacabka ah ee wadooyinku ka xiran yihiin ee meel ay maraan la hadana canshuur bixiyaasha ee lacagta laga rabo ayagu maxay dareemayaan xaalad nooc ah ay ku sugan yihiin gudoomiyaha la sugaa loo dhaqaaleeyay sawir inuu ku galo war waxa shaqan maaha laami yaro hal faata oo nus kiiloomitir dhameen rubaca waxa la dhisay 4 bilood war uqbayaa la gurubsanin war habaar yaa la gurubsanin war meelaha marna ku shaqeynaa laana war cashuura naga rabtaa inama maaha war waa ku wareernay war laamiga dhismiisa wareeraa laami yaro hal faata oo nus kiiloomitir dhameen rubaca waxa la dhisay 4 bilood maanta markii la dhisana waa kan meel kala maraan laaya gudoomiyaha la sugaa loo dhaqaaleeyay sawir inuu ku galo war waxa shaqan maaha war waxa umada loo naxariisto war uqbayaa la gurubsanin war habaar yaa la gurubsanin war meelaha marna ku shaqeynaa laana war cashuura naga rabtaa war meel maraa laaya meel dhagax ku xirto iyo meelaas ku sawirtaa wadada ka dhigteen war waxaan dawladnimo maahan war ilaahay ka cabsado war umada u naxa dadka muqdisho badankood lacagtooda waa la qaataa waxbana looguma qabto